لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال kusoo dhawaada barnaamijka maan godlin meel walba aad dunida ka daawaneysaan barnaamijka maan godlin waa barnaamij aan ku soo qaadano murtidaas oo nagu dhalisa maan godlin aan ka helno guubaabo na gaarsiisa guul adduun iyo mid aakhiro labadaba maanta murtida aan ka hadlayno ciwaankeedu waxa weeyaan barasho horteed ha isnicin mar labaad oo ku celinaya waa barasho horteed ha isnicin ma aha barasho horteed ha inicin waxaan ognahay bini aadamka mar walba cilmiga iyo barashadu waxay u tahay aasaaska nolosha qofka intuusan wax baran hadduu la fangalo wixii isaga kusoo noqonaysa isaga ayaa waxay ku dhacaysaa arrintii cigaalsheeda ku dhacdayo masaan ku mooday mise saan noqotay mise saan loo noqon doonin marka waxaan rabnaa inaad inta aad hadhow naftaada aad haaraami lahayd oo naftaada aad la dagaalami lahayd oo naftaada u dhihi lahayd war meeshaas maxaa ii geeyey ama qofkaa maxaa ii geeyey waxaan leenahay barasho horteed ha isnicin adiga marka isdifaac adaa la rabaa inaad defense aa leedahay difaacaad ku jirtid si aad horumarka iyo wanaagga aad rabto u gaarto waxaan marka ognahay bini aadamka wax walba uu rabo inuu qabsado si kasta adiga hadda maanta ilaahay subxaana wa tacaala aad damacaad u leedahay oo aad damacaada ugu dadaasho oo aad dulqaad ugu yeelato mar walba waxaa kugu imaanaya dad ka shaqeeya dayro iyo maaragtay diidmo iyo dood iyo dagaal aan shaqo kale wax kale aan lahayn markaa see dadka uga badbaadi karta waxaa weeye barasho inaad dadka laftigooda aad baratid oo aad bulshada aad baratid siduu noo imaan doonta waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamkaan ma simin sida shantaa farood ayna u sinayn buu bini aadamka uusan u sinayn oo maaragtay kartidooda iyo maaragtay qualitigooda iyo maaragtay ayna sinayn waana midda uu rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi noo sheegay oo ah uu yidhi annaasu macaadin ka macaadini الdahabi wاlfida khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihuu wuxuu yihi rasuulka sala اlه alay wasalam bini aadamka macnihii madni kalaa isagana wuxuu dhahaya tajiduuna annaasa macaadin ka macaadin الdahabi wاlfida dadkii baa waxaad helaysaan inay yihiin sida macaadinta ay u kala qaalisan tahay oo u kala qiimo badan tahay oo u kala hooseyso oo u kala liidato maalan inuu bini aadamka sida oo kale uu yahay oo bini aadamka dad aada u qiimo badan baa ka helaysaa sidoo kale waxaa ka helaysaa dad maaragtay aada u liita oo duntoodu liidato meesha kuwa kale maarata dad qiimo badan oo duntoodu ay adag tahay fiicantaha dun fiican ay leeyihiin marka wuxuu leeyahy rasulka sal ly slam dadkooda markii jaahilnimada lagu jiray ee khiyaarta ahaa haddii wax fahmaanna iyaga khiyaaro oo wanaagsan dadkii shalay madaxda soo ahaa haddii islaamka iyo khayrka iyo wanaagga ay fahmaan iyaga haddana madaxdii noqonaya meel kale waxay leedahay khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa fuqihuu oo fa'da la godo haddii la fahansiiyo taasaa marka waxay imaanaysaa had yaa fahansiinaya hadday helaan dad culamo ah ama macalimiin ah ama tababarayaal ah ay helaan waxaa laga yaabaa ninkii shalay maaragtay jaahiliga iska ahaa oo laakiin iska quality fiicnaa inuu hadhow nin ikhyaara oo aada u quality fiican uu noqdo waarta waddankan waxaa aada uga shaqeeya oo dee industry ballaaran ah dadka maaragtay consultantiga ku shaqaysta oo waxay coach gareeyaan maalan ama dadka maaragtay sports ku jira maaragtay coach gareeya ama mentor gareeya ama maaragtay train gareeya qofkii marka hadduu helo qof maaragtay macallin u ah waxbaro u ah oo tababaro u ah oo maaragtay mar walba maaragtay dhiiro gelinaya oo wadaya wuxuu gaarayaa inuu noqdo qof maaragtay khiyaara oo aada u wanaagsan ummaddana wax u taro uu noqonaya marka say dadkaas saas u kala duwan yihiin bay maaragtay midabkooda iyo maskaxdooda iyo waxooda dhan u kala duwan yahay waana ilaahi subxana wa tacala markuu abuurayay bini aadamka kowdii hore uu abuurayeyba wuxuu ka abuuray cantooba caraa oo dhulka dhan uu ka soo aruuriyey markaasay bini aadamka waxay qaateen midabkii dhulka iyo dabeecadihii dhulka maarata xadiis baa wuxuu ahaa in allaha caza wajalla khalaqa aadama min qabdatin qabadahaa min jamiici alard ilaahi subxaana wa tacaala bini aadamkii wuxuu ka abuuray cantoobo cara ah oo uu ka soo aruuriyey dhulka o dhan uu ka soo aruuriyey markaasay bini aadamkii waxay noqdeen
inay qaataan maaragtay midabadii dhulka oo ay qaataan dabeecadihii dhulka markaasaa bidaayinka waxaa ka helaysaa fa minhum alaxmaru waalaswadu waalabyadu mid waxaa ka helaysaa bini aadamka midabka maaragtay cas qaatay mid midab madow qaatay mid midab maariina qaatay mid maaragtay midab cad qaatay saas u kala duwanaadeen sidoo kalena dabeecadahoodiina sidaas bay u kala duwanaadeen fa minhum asahlu waalxasnu waxaa ka mid a mid maaragtay dabeecad wanaagsan leh oo sahl ah oo dabeecad maaragtay dabacsan oo fiican oo sahlan leh mid baa wuxuu leeyahy dabeecad maaragtay ad adag oo qalqalafsan oo qof maaragtay marka la arkaba qalbiga bini aadamku uu maaragtay ka qaxayaba uu ka tegayo uu ka cararayo oo maaragtay aan qiimo lahayn oo maaragtay dabeecaddii rasuulka la yidhi walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlika kan xawligiisa dhan laga wada cararayo buu mid ka mid a arkaysa oo dad ka mid a waxaa ka mid a fa minhum alطayib waalkhabiith waxaa ka mid a mid tayiba wanaagsan oo aada u macaan oo maaragtay mar walba markaa aragtid maaragtay wax ayib aan ahayn aad kala kulmin ficil fiican iyo aragti fiican iyo maaragtay murti fiican iyo wax walba aad ka helaysid mid waxaa ka helay sidoo kale khabiith ah oo xun oo nagnagla ah iska qaylinaya maanta dhan oo aada u qaabdarana oo xun oo khubadna waa ka helaysaa marka bini aadamkii sidaas ay midabadii u kala qaateen oo maaragtay dabeecadihii u kala qaateen ayuu ilaahi subxaana wa tacaala u kala duway marka midabka dhulka haddaad fiirisid macnihi waxaan ka wadaa midabada dhulka waa kala duwan yihiin sidoo kale haddaad fiirisid macnihii dabeecadaha dhulka uu leeyahay midabada haddaan maal ka fisha intaan hadda aan sheegno oo kale waa laga helaa dhulka meel waxaa ka arkaysaa madow carro madow ah oo dhoobey aad ka helaysaa meel waxaa ka helaysaa maaragtay carro gaduud ah oo maaragtay carro cas baad ka helaysaa meel carro cad baad ka helaysaa meel maaragtay waxba oolin oo dhagxaanaad ka helaysaa sidaas oo meel maaragtay cagaar ahoo qurux badanoo daaqa aad arkaysaa saasaa midabada ilahi u kala duwan dhulka subxana wa tacaala sidoo kale dhulka dabeecaduu leeyahayo dabeecado kala duwan baa jirta dhulka maalan meelo waxaa arkaysaa maxaan ku idhaahdaa buuro aad adag maaragta baad arkaysaa oo ilahayna buuraan xikmaddu ugu dan lahaa waxaa waayaba lianlaa tabiida bikum inuu dhulka anaga uusan nala gelgelan oo nala dheelin ba ahayd marka meel adag buuro adag bay leedahay dhulka bini aadamka waxaa ka helaysaa mid adag oo maaragtay culus oo meesha ay soomaalida ka dhahaan ama buur noqo ama buur ku tiirso lagu tiirsan karo oo la harsan karo oo culus oo maaragtay markaa ag joogtid security aad dareemi kartid kalsooni aad dareemi kartid oo maaragtay wax aad ka cabsatay uusan jiraynin baad ka helaysaa sidoo kale bini aadamka meelo waxaa ka mid a maxaan ku idhahdaa balliye ah balliga waxaa lagu yaqaanaa biyihii buu hayaa dad iyo dunya waa ka waraabaan waa laga dhergaa bini aadamka waxaa ka helaysaa dabeecadda dhulka mid laho oo dadku usoo waraabaan maxay ka helayaan murti cilmi xikmad waxyaalo badan way ka dheefayaan waa ag imaanayaan mar walba oo loo soo arooraa oo loo imaadaa bini aadamka sidoo kale waxaa ka mida meelo khatar ah oo laga cabsado oo maaragtay boholo ah boholaha way kula degaayaan haddaa dhacday adaa ku dhimanaya marka dad waxaa jira haddaad u imaatid bini aadamkaas boholahaasoo kale aho oo kula degayaba inaad la saaxiibto adaa ku dhimanaya maarata horumarkaadaa ku dhimanaya waa ku dhacaysaa maaragtay boholahaasi bay kugu noqonayaan marka inaad iyaga dadka laftooda aad barato oo dabeecadda dadka noocaas iskale oo boholaha ahna aad ka bayrto oo aad ka badbaado oo xikmaddaa ku jirta inaad bini aadamka kala barato xikmaddaasaa keenaysa sidoo kale dhulka waxaa ka mid a meelo oo beeraha calaamad waxay u yihiin hanti oo qofka beeraha le qof hani ah weeye marka beeraha marka waxaa lagu yaqaanaa waxbaad ku abuuranaysaa wixii aad ku abuurtay 10 jibaarkeedaa ka helaysaa hal xabaad gashatay 100 xabaa ka heshay 1,000 xabaad ka heshay hodan baa ku noqonaysaa hani baa ku noqonaysaa bini aadamka waxaa ka mid a haddaad la saaxiibto dhaqanka noocaas oo kale ah beerahaas le haddaa maalkaada u dhiibto maalkaada uu ku barwaaqoobayo haddaa noloshaada u dhiibto noloshaada oo ku barwaaqoobaysid adoo keliya u imaatay maalan waa ku guursatay waa ku ilmo dhashay waa hanti baa ku heshay marka qofka inaad la saaxiibto qof aad ku barwaaqoobaysid oo wanaag aad ku yeelanaysid uu noqonaya oo aad ka helaysaa bini aadamka qaarkood meelo ka mid a bini aadamka waxaa dhulka ka mid a dabeecadaha dhulka ka mid a meelo maaragtay bacaad ah bacaadka waxaa la yidhahdaa wixii la geliyo waa meel wixii la geliyaba liqaysa waxaana kama soo baxaan hadda maanta haddaa bacaad waraabinaysid waxaa waaye waxba kaagama soo baxayaan soomaaliduna wixii ay ku khasaaraan ama wax ka waayaan
waxay dhacaan ama waxba ay ka rajeynayaan waxay dhacaan waa hal bacaad lagu lisay macnaheedu qof bini'aadamka waxaa ka helaysaa maanta haddaa la joogtid oo aad wax walba aad gelinaysid oo ku dhuraysid xikmad wax bar leh wax sii dheh maarta wax u sheeg dheh maanta dhan uun waxba aan iska bedelayn oo halkaa bacaadka lagu lisay ah ma rabtid qofkaas adiga inaad noloshaada ku dhumiso qofka waa inaa ama adi aad ka faa'iidaysanaysid ama maaragtay adiga aad u faa'iideynaysid wax ka dhexeeya ma laha positive iyo negative miduu noqon karaa haddii marka qofkii aadna aad waxba aada ka helin oo kaaga imaanin wax haddaa siisana aada ka helaynin ha isku khasaarinin waay oo bini aadamkaas maaragtay bini aadan aad u baahanta inaad ka badbaado waay